salaam asxaabta ma tahay qof isticmaala Facebook ma ku rajo weyn tahay inaad Facebook lacag ka samayso caqabado ma kaa haysteen meesha loo mara ma la'eed qaabka lacagaha loo suubiyo iyo shuruudaha lacagaha lagu suubiyo ma ku dhibaneed waxaan ku haynaa Facebook wax allaala wixii cilad kaa qabsato in aan kaa caawino qaabka lacagta loo suubiyo oo kaleeto haddii ay tahay hadda tusaale oo kale beej shuruudihii buuxiye waaye waxa laga rabo waxay tahay 5 shuruudood waaye 5 shuruudood oo laga rabo waxay tahay waa shuruudda ugu horeysa oo ah qofka inuu degan yahay wadan eligible ah oo wadan looga ogol yahay xayisiinta Facebook shuruudda labaad oo ah content monetization policy iyadana waxa waaye content adiga aad leedahay Facebook inaad soo geliso ama wax adiga aad leedahay xuquuqdooda inaad Facebook aad soo geliso si tig lagugu saaro badanaa midda ugu dhib badan waa content monetization policy-ga midda saddexaadna waxay tahay waxa waaye profile-kaaga inuu at least ama ugu yaraan ama uu leeyahay ama uu haysto 5,000 oo follower ah midda saddexaad afaraadna waxay tahay in aad buuxiso watch hours-ka 60,000 oo saacadood midda u dambayso shanaadna ayadana waxay tahay 5 video in aad 30 maalmood ugu dambeysay aad soo dhigtay page-kaagii haddii 5taas shuruudood aad buuxiso lacag waa ka samayn kartaa Facebook-ga intaasoo shuruudood markaad buuxiso maxaa kuu soo baxaya marka maxaa ku xiga hadii kaleeto waxaa ku xigo inaad stream ads-ka inay kuu furmato ee kugu qormato sidaas setup ay kugu soo qormato oo aad setup gareyn kartid page health-ga muhiim waaye page-kaaga health-giisa inuu macnaha waxa waaye has no issue inuu yahay muhiim waaye maxaa kaleeto page-ka rabtaa inaad ka fiiriso inta aadan page xayisiinta ku xiran page recommendation-kaas inaad fiiriso in wax copyright ama wax kaleeto inay kuu yaalaan inaad iska fiiriso inuu clear kuu yahay hadda clear anaga noo yahay maxaa kaleeto lagaaga baahan yahay Facebook inaad ka fiiriso page status-kaas inaad fiiriso mar walba inuu kuu yahay page has no issue waa muhiim halkaas fiiri meeshaas eligible to monetize ugu noo yahay monetization-ka waa eligible waaye waana loo ogol yahay ay ka dhigan tahay taas halkaas waxaa noogu qoran setup hadda wixii ka dambaysa waa lasoo setup gareynaya sooma setup markaa ku dhufato maxaa kuu soo baxayo waxaa kuu soo baxaya shuruudihii inaad buuxisay haddii aadan buuxinin halkan maxaa kaaga soo baxayso wixii kaa dhimana halkan kaaga soo baxayso anaga hadda muxuu noo yahay 4 of 5 noo yahay adiga muxuu kuu noqonayaa marka inta kaa dhimana meeshaan kuugu soo qornaanayso haddii saacadaha ay kaa dhiman yihiin haddii content monetization policy uu kaa dhiman yahay wixii kaa dhiman iyo haddii wadanka resident eligible-ka uu kaa maqan yahay ama wadanka uu kaa dhiman yahay ayadan tig ayna kuu saarneen wixii kaa dhimana mar walba kuu soo baxayo tusaale aniga magaalada Muqdisho aan joogaa xamaraan joogaa saasay tahay page-ka waxaa adminka ee Faransiiska jooga adminka ah ma garantay marka saas la ajliga eligible ii soo qoriyo anoo xamar jooga hadda page-ka fiirinaya maxaa kaloo page-ka u baahan tahay inaad ka fiirisid waxyaabo kaloo page-ka u baahan tahay jir inaad ka fiirisid qaybtan kaloo setting-ka mujadido help and support aad soo galaysaa support inbox aad ku dhufanaysaa meeshaan ayadana muhiim waa inaad iska fiirisid si page-kaaga aad u ogaatid health-giisii maxaa ku dhufanaysaa qaybta your alert aad ku dhufanaysaa mujadido no violation qaybtaas kaleeto waxaa waa reports-ka ku dhufanaysaa ayadana maxaa kugu soo qoran no report wax problema page-kaana ma laho marka markaa hubsatid page-kaaga inuu wax problema uun lahayn ama caafimaadkiisii uu hagaagsan yahay uu wanaagsan yahay markaas wixii ka dambeeya waxaa waaye page-kaagii oo shuruudihiina aad buuxiso loogu talagalay Facebook-ga markaas wixii ka dambeeya waxaa waaye waxaa kuu dhiman inaad apply garayso Facebook haddii aan soo aragnay intaas adiga maxaa kaa haysto in Facebook-ga xayisiinta apply garayso ama Facebook aad lacag ka samayso haddii problem ku haysto comment-ga nagula wadaag waa kaa caawinaynaa intii aan wadna insha Allah asla wada ceeshno isla wada bariisay fadlan video meel dheer noo gaarsiiyo muuqaalka noo share gareeyo page-ka noo follow gareeyo